kulanti wanaagsan daawadayaal kuna soo dhawaada barnaamijka wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya. Qodobadan maanta barnaamijka ku soo qaadi doonana waxaa kamid ah dawladda federaalka Soomaaliya oo markii ugu horeysay qiratay in cadaadis daran uu uga yimid beesha caalamka taasina ay ku qasbayso inay qabato doorasho degdeg ah. Haddaba maxaa iska bedelay mowqifkii dawladda federaalka ee ka dhanka ahaa beesha caalamka? waa samaxay sababta ku kaliftay in ay qaado talaabadan. Macluumaad dheeraad ah ayaan idinkaga haynaa. qaramada midoobay oo soo dhaweysay talaabadii ay dawladda federaalka Soomaaliya dib ugu soo celisay xiriirkii diblomaasiyadeed ee kala dhaxeeyay Kenya. maxaa ku qornaa qoraal uu soo saaray xogayaha guud ee qaramada midoobay? wararkeena kalena waxaa kamid ah xukuumadda Soomaaliya oo ku dhawaaqday inay wada hadallo rasmi ah la furayso dawladda Kenya. maxay noqon doonaan qodobada adag ee xukuumadda Muqdisho kala hadli doonto tan Nairobi? ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Cumar Cabdirashiid oo hal arrin ka codsaday xukuumadda ra'iisul wasaare Rooble kadib heshiiskii Kenya iyo Soomaaliya. muxuu Cumar Cabdirashiid ka yiri in dib loo soo celiyo xiriirkii kala dhaxeeyay Soomaaliya Kenya? iyo maxkamadda ciidamada oo markale u fariisatay dhageysiga kiiskii gudoomiyihii Hodan iyo eedeysanayaal ay maxkamaddu sii daysay kadib markii ay wax dambi ah ku weysay. qodobadaas ayaan ku faahfaahin doonaa barnaamijka insha Allah. waana sabti 8 bisha shanaad ee May sanadka 2021. barnaamijkan wararka Soomaaliya waa mid aan ku soo gudbino dhammaan dhacdooyinka dalka. haddaba daawada ka qayb qaada dib u dhiska dalka inagoo ka dheeraanayna wax walba oo dib inoo celin kara. waad ku mahadsantihiin inaad taasna la fahantaan. fadlan nala faafiyo wararka oo gaarsiiyo saaxiibadiina idinkoo ku shargareynaya baraha bulshada. mahadsanidin. aynu ku bilowno wararkeena. dawladda federaalka ee Soomaaliya ayaa markii ugu horeysay waxa ay qiratay in cadaadis daran ay kala kulantay beesha caalamka taasina ay ku qasbayso in dalka ay ka hirgeliso doorashooyin degdeg ah. wasiirka arrimaha dibadda ee xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya mudane Maxamed Cabdirasaaq ayaa waxa uu sheegay in dawladda federaalka ay dedejin doonto qabashada doorashooyinka dalka si looga hortago xasilooni darro loogana dhaadhiciyo dalalka deeqaha bixiya inay fasaxaan lacagaha ay ka joojiyeen dawladda federaalka ah ee Soomaaliya. wasiir Maxamed Cabdirasaaq ayaa u sheegay warbaahinta la yiraahdo Bloomberg ee Mareykanka in lacagtan degdeg loogu baahan yahay si loo bixiyo mushaarka shaqaalaha dawladda iyo ciidamada ammaanka. dawladda federaalka ee Soomaaliya ayaa aad ugu xiran kaalmada deeq bixiyaasha iyadoo dakhliga gudaha ka soo xarooda uu ka yar yahay bar kamida miisaaniyadda sanadka ee xukuumadda. waxay sanadkan heshay kaliya bar kamida 100 milyan oo euro amaba 120 milyan oo dollar oo midowga Yurub u ballan qaaday in uu sanad kasta ku taageeri doono muddo 3 sano ah iyada oo inta kalena laga hakiyay. dawladda federaalka Soomaaliya waxa ay ka digtay halista xasilooni darro sare u kacda haddii aan la buuxin firaaqa dhanka miisaaniyadda oo ay awoodi weyso in ay iska bixiso mushaaraadka. haddii dawladda aysan awoodin inay sii wado inay bixiso mushaaraadka shaqaalaha rayidka ah iyo gaar ahaan ciidamada amniga, tani waxay geysan kartaa dhaawac weyn, ayuu yiri wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya Maxamed Cabdirasaaq. waxaan hadda wadnaa wada hadallo ku saabsan in lacagtaas la soo fasaxo ayuu hadalkiisa ku sii daray. midowga Yurub kama jawaabin email ay u dirtay Bloomberg si ay arrintan ay uga jawaabaan midowgaasi. ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble ayaa la filayaa in uu 20ka bishan wada hadallo ku saabsan qabashada doorashooyinka la yeesho madaxda maamul goboleedyada, markaasi oo haddii heshiis lagu gaaro lagu dhawaaqi doono xilliga ay doorashooyinka dhacayaan. balse dawladda federaalka ee Soomaaliya ayaa iyadu waxay noqonaysaa in ay qirato in markii ugu horeysay cadaadis daran uu uga yimid beesha caalamka taasina ay ku qasbayso in dawladda federaalka ah ay qabato doorasho loo wada dhan yahay oo waliba si degdeg ah ku qabsoonta. dhinaca kale ee qaramada midoobay ayaa waxa ay bogaadisay doorka Qatar ee dhexdhexaadinta Soomaaliya iyo Kenya iyadoo soo dhaweysay in la soo celiyo xiriirkii labadaasi dawladood. xogayaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa soo dhaweeyay dib u soo celinta xiriirkii diblomaasiyadeed ee wadamada Soomaaliya iyo Kenya kaasi oo go'ay dabayaaqadii sanadkii la soo dhaafay 2020. Antonio Guterres ayaa bogaadiyay dadaalada dhexdhexaadinta ah ee ay wado Qatar isaga oo tilmaamay inay talaabadan xoojinayso diblomaasiyadda iyo horumarka siyaasadda. sidoo kale waxa uu intaasi sii raaciyay inay muhiim tahay in la dhameystiro heshiiskan si looga miro dhaliyo is-afgaradka bilowga ah. waxaan soo dhaweynayaa kaalinta dawladda Qatar ee dhexdhexaadinta Soomaaliya iyo Kenya. waa tallaabo habboon oo xoojinaysa diblomaasiyadda iyo horumarka siyaasadda. waxaa dhiman waa in la dhameystiraa si looga gungaaro is-afgaradka bilowga ah, ayuu yiri Antonio. Soomaaliya iyo Kenya ayaa muddooyinkii la soo dhaafay waxa u dhaxeeyay khilaaf xooggan oo ka dhashay kiiska badda ee horyaalla maxkamadda caalamiga ah ee cadliga adduunka ICJ. si kastaba dawladda Soomaaliya ayaa Khamiistii ku dhawaaqday
inay dib u soo celisay xiriirkii ee labada dowladood kaasi oo horey u go'ay dabayaaqada sanadkii hore ee 2020 kadib markii ay dowladda federaalka ah ee Soomaaliya ku eedeysay Kenya inay faragelin qaawan ku hayso arrimaha ee Soomaaliya inkastoo Kenya eedahaasi ay iyadu iska fogeysay. waa hagaag wali ee barnaamijka wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya ayaad la socotaan. Ra'iisul Wasaarihii hore ee Soomaaliya Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaakana waxa uu ka hadlay xiriirka diblomaasiyadeed ee dib loo soo celiyay ee Soomaaliya iyo Kenya. Ra'iisul Wasaarihii hore ee Soomaaliya Mudane Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaaka ayaa qoraal uu soo dhigay boggiisa Twitter-ka waxa uu kaga hadlay arrimo ku aadan dib u soo nooleynta xiriirka dalalka Soomaaliya iyo Kenya. Cumar Cabdirashiid ayaa shaaca ka qaaday in arrin lagu farxo ay tahay dib u soo celinta xiriirka diblomaasiyadeed ee labada dal oo ah kuwa daris ah. sidoo kale waxa uu tilmaamay in uu soo dhaweynayo dhexdhexaadinta iyo dadaalada ay wado dowladda Qatar. waa war farxad leh in dib loo soo nooleeyo xiriirkii diblomaasiyadeed ee Kenya nagala dhaxeeyay. waxaan sidoo kale jeclahay inaan soo dhaweeyo dadaalka ee dhexdhexaadinta ah ee dowladda Qatar ayuu yiri ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya. Cumar Cabdirashiid oo haatan ah senator ka tirsan aqalka sare ayaa xusay inay tani xoojinayso ganacsiga ka dhaxeeya Soomaaliya iyo Kenya si loo xoojiyo ganacsigeena uguna gudagalno geedi socodka horumarka. waxaa laga maarmaan ah in dib loo soo nooleeyo xiriirkeenii Soomaaliyeed ee nagala dhaxeeyay ee adduunka ayuu hadalkiisa ku soo gabagabeeyay Cumar Cabdirashiid. si kastaba dowladda Soomaaliya ayaa Khamiistii ku dhawaaqday inay dib u soo celisay xiriirkii labada dowladood kaasi oo go'ay dabayaaqadii sanadkii hore ee 2020. dowladda federaalka Soomaaliya iyadu waxa ay sheegtay in ay wada hadal markaasi degdeg ah la furayso dowladda Kenya. wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya waxa uu sheegay in sida ugu dhaqsiyaha badan ay u furi doonaan wada xaajood ay la yeelanayaan dowladda Kenya kadib markii la soo celiyay xiriirkii ka dhaxeeyay labadaasi dowladood oo daris ah. waxa uu sheegay in sida ugu dhaqsiyaha badan ay u kulmi doonaan madaxda ugu sarreysa ee dowladaha Soomaaliya iyo Kenya. waxaana laga yaabaa in madaxweynaha dalka Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu kulan la qaato dhigiisa Kenya Uhuru Kenyatta si ay u saxiixaan heshiiskan inta dhiman, sida in dowladda Kenya laga saxiixo in aysan mar dambe soo faragelin arrimaha siyaasadda gudaha taasi oo markii horeba khilaaf ka keentay. xukuumadda ra'iisul wasaare Roble ayaa waxaa laga dalbaday inay arrintaani si xoog leh uga shaqeyso maadaama muddaxileedka hay'adaha dowladda federaalka ee Soomaaliya oo ugu horeeyo madaxweynaha uu dhamaaday. taasina ay caqabad ku noqon karto in madaxweynaha dalka uu qaato go'aamo kale oo dib u dhac u keeni kara xiisadda siyaasadda Soomaaliya oo iminka ah mid kacsan maadaama la gudagalayo arrimihii doorashooyinka. waxaan la ogeyn waqtiga iyo goorta ay kulmi doonaan labada dhinac ee Soomaaliya iyo Kenya, iyadoo sidoo kale la qorsheynayo in dowladda federaalka ee Soomaaliya ay warkama dambaysa ka soo saarto xiriirkan la soo celiyay ee Soomaaliya iyo Kenya iyo waliba sidoo kale waqtiga ay kulmi doonaan madaxda labada dowladood. ugu dambeyntiina waxaa maanta mar kale maxkamadda ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya ay u fariisatay dhageysiga kiiskii dilka ahaa ee loo geystay gudoomiyaha degmada Hodan ee Cabdixakiin Dhagajoon. iyadoo wali ay socoto dhageysiga dacwadda dilkii loo geystay gudoomiyaha degmada Hodan ayaa maxkamadda ciidamada qalabka sida waxay sii deysay laba kamid ah askartii ee lagu soo eedeeyay dilka marxuum Cabdiraxmaan Dhagajoon. labada askari ee la sii daayay ayaa kala ahaa Cabdiraxmaan Isaaq Cabdullaahi iyo Xasan Abuukar Maxamuud Booqsane oo kamid ahaa 7 askari oo dhacdadaasi iyagu loo xiray. sii deynta raggan waxa ay timid kadib markii xeerlaaliyaha maxkamadda ciidamada uu shaaciyay in uu eeda kala noqday labadaasi askari oo kamid ahaa ilaalada taliyaha saldhigga booliiska degmada Waaberi Maxamed Cabduqaadir oo loo yaqaan Motion. sidoo kale waxay maxkamaddu sheegtay in labadaasi askari aysan qayb ka ahayn ciidamadii riday rasaasta lagu furay laguna dilay marxuumka. maxkamadda ayaa sidoo kale dhageysatay warbixinta guddiga gaarka ah ee la soo saaray sida uu dhacay dilka marxuum Cabdixakiin Dhagajoon. waxaa sidoo kale gudoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida gaashaanle sare Xasan Cali Nuur Shuute uu ku dhawaaqay in maxkamadda maanta la xiray fadhigeeda isla markaana go'aanka kama dambaysta ah maxkamaddu ay dib ka soo shaacin doonto. alla u naxariistay marxuum Dhagajoon ayaa xilli habeen ah gaar ahaan 22kii January ee sanadkan waxaa lagu dilay isgoyska Howlwadaag ee magaalada Muqdisho, waxaana lagu wadaa inay maxkamadda ciidamada go'aan rasmi ah ka soo saarto dilka gudoomiyihii Hodan, iyadoo maanta dood adag oo dheer ay yeesheen
ee qareenada difaacayay eedeysanayaasha iyo weliba sidoo kale xafiiska xeraalyaha guud ee ciidamada qalabka sida. qodobkaasi ayaa ugu dambeeyay warkeena tan iyo warkaan war la mid ah intaynu dib ugu kulmi doono sidaas iyo nabadgelyo.